waa qaybtii labaad ee sheekadii u dhaxaysay ama sheekadii baan iraade wiilka Amerikaanka ahaa Caleb iyo sidoo kale gabadhii Russianka ahayd ee Alina. Russian gabadha Russian hada dib ugu laabtay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحب شرفت بدن سورة مركلي وسورة مقال كله ولكن صاحب كنا اسمه سي كنا كوسو برو مركلي وحنا دلكم مسنتي سيد مرور بعد درس أتم مقالة كنا كان كسودينه سدا والله قرينا سام شر قرينا سام خوف كويس كنا كادو كسو بيري وحن كلنا هاي سودو لما تينو مسنتين أوكي قيبتي أول شيء كذا وحنا وقاضي أيقو مركزي كل شيء إنه يسوي مادان تركي أيضا أيراشي كسو تكتو يستغنوا ومرايكان كسو تكو سدا سي تركي يسوي مادان. واو نايس. So ayada ayaan ku soo hormartay Turkey iyo waliba hotelkii ama meeshii ay degi lahaayeen oo uu qabtay Caleb Aye. This is your key. Your room is the second floor. But does it have an elevator? Unfortunately, we don't have any elevator. That's bad. hotelka wuxuu ku noqday markaasi hotel oo elevator la'aan ama wiish la'aan ah ayadana kulay xaaladda sida arki karna waxa ku dhib. Okay, this is a lot now. Excuse me? Caleb's responsibility was to choose the hotel. Okay, Caleb eedayntiisu way bilaabtay waxay tiri isaga mas'uuliyadiisa ayay ahayd inuu hotelka uu dooro. Marka waxay tiri sababta oo hotel oo elevator la'aan uu igu sii qabtay maxay tahay? Like, why? Maybe he'll have to carry me sometimes. Okay, wili jaranjartii socdaa marka sidee ku soconaysana waan aragnaa waxay leedahay marka waxa waa in meesha dhib ay ugu noqonay marka mararka qaar inuu iqaaday noqonay kuma cuslaanay sida u maleena. It's really like an apartment. Oh, wow. Thank you so much. The bed is even higher for me. It's higher than me. It's very high. sariirta xitaa way iga dheertahay leedahay qoftan. It's high. I'm meeting Caleb in less than 24 hours. And I'm just very excited to see him in real life. But at the same time, waan ku faraxsanahay inaan Caleb aan is arkayno ugu dambeyntii leedahay saacado yar gudahooda laakiin sidoo kale waan ku xanaaqsanahay sababtoo ah hotelku ii bookimay hotel aniga aan qaadi kar ma baahan mar ma aragtay masquushi ama suuliga ku dheer mar sariirtii ku dheer mar hotelka elevator ma lahan waxa waa cabasho badan ay qabtaa sidoo kale waxay leedahay marka waxayba taas iga dhigaysaa inaan ku fikiro macnaha Caleb ma ba fahmay miya isaga macnaha aniga waxyaabaha aanan qaban karin. this makes me think maybe Caleb doesn't understand my abilities. ninkan timaan guduudan oo saaxiibkeeda la joogo marka isaga si caawina isaga ilaa ninka kale uu kiimaana. Okay, marka ugu dambeyn saacadii way soo tareen airportka iyo sidoo kale Caleb oo soo degay iyo saaxiibta ayadana sugayso. Alina. Hi. Hi, I'm just gonna hug you. Go. Show me your face. Aye, wajiyadii la istusayahay marka. Really you. Hi. Hey, It's really you. it's really me. Okay, marka ugu dambeyn way is arkeen oo way soo dhinac fariisteen marka comment-ya la iska bixinaya de markaas waxa waa sida isaga u aragtaa sida ayada u aragtaa marka isaga wuxuu yiri yani wax oo cajiib ay la tahay ama aan la qaadan karin in ugu dambeyntii aan is aragno yani kadib waqti badan oo internetka aan isku naqinay aan ku shaqeysan jirnay laakiin wuxuu yiri muuqaal ahaan waad igala yar tahay oo sidaan u maleynay. But you're smaller than I thought. Is it weird for you? It's different. Okay, marka ayadana waxay ku celisay marka aan ku xuntahay marka inaan saas u yaraay macnaha xaalad adiga ku qasayso ma noqonay marka isagana wuxuu yiri ma xaalad duwan ay noqonay macnaha. Okay, marka kadibna uu sii wadaa sii kacinaya waxay leedahay macnaha culays mise dhibaato baan ku dareemay in wheelchair-ka aad igu wado isagana wuxuu leeyahay hal boorsana hal gacan boorsaan ku wada hal gacan aad ku riixaya gacanta aad ii daash. Marka waxay leedahay maalintii koowaad boorsada jiiditaankeeda in wheelchair-kayga oo maaragtay si dhinac kale ugu leexanayo isagii oo aan khibrad wixii aanan u lahayn alaabihii oo maaragtay dhulka nooga dhacayaan waxay dhaad macnaha cabsi oo waxay gelisay tiri macnaha inuu isdhaho oo macnaha de qoftan inta noloshiina ka dhiman hadii ay noqoto markaas inaad wada jirtaan sidaan maad u riixay macnaha With me and my wheelchair, this is not the best first impression. soo jiidashada ugu horeyso ugu fiican ma ahana leedahay macnaha midan
kadibna waxaa la barayaa sida kursigeeda loo laalaabo macnaha intaan gaariga la saarin. Can you? But I feel like I just need some time to adjust to being with a little person. marka isaga dhankiisa commentigiisana wuxuu leeyahay yani inta aan internetka aan ka arki jiray mise kaamirad ahaan inteeda horeyn waan arki jiray yani qaabkan ma umaleynay laakiin hadda lugaheeda hoose ama inteeda hoose haddaan si fiican u arkay u dhahay marka waqtiga iiga baahnaanaysaa inaan la qabsado ama aan barto si aan ula noolaado macnaha qof cabir ahaan intaas ah. My feelings are kind of hurt because I want some affection from him. maraba muuqaal ahaantaas inaan u wadaago laakiin adiga labadooda markay isku imaadeen kadib waxa waaye ayada disappointed noqotay ama niyad jabtay sababtoo ah ninka waxa waaye isagoo iska seexday kulley sida ayada ay wax u rabtay markaasi uma aysan dhicin marka ayadana waxay tiri macnaha niyad jab ay ugu noqotay taas sababtoo ah inuu iga niyad jabay oo kale aan dareemay tiri. Guys, could you take off your shoes? Of course, we are not in the US. Welcome to Turkey. Thank you. So I hope it will be nice dinner together. Yeah. kadib waxaa casuntay saaxiibad ay ku lahayd Turkey gurigooda ay wada tageen kadibna maaragtay meesha ku wada casheeyeen su'aal ayay weydiisay oo markaasi ah ka waran ma qorshihiina macnaha ma Mareykan wada degi doontaan mise Ruushka wada degi doontaan marka isaga wuxuu yiri marka horta waqtigan isbuucyadan aan wada qaadan oo aan isbarano markaas kadib macnaha aan ka hadlaynaa marka ayadii aad ku soo celisay gabadhii martida loo ahaa waaye waxay tiri yani gabar walba waxay jeceshahay macnaha qorshaheeda nololeed inay ka sii fikirto marka isaga wuxuu yiri taas waxaan u maleynayaa inay ila tahay wax anaga inaan ka hadalna ay tahay ninka waxa waa de gudaha loo galay. Sorry if I'm asking questions like that, but like she's my friend. marka isla meeshiiba marka gabadha waxay leedahay su'aalaha inaan san ku weydiinayo waan ka xumaa laakiin waa saaxiibadayda marka ayadii marka waxay noqotay dana furush inay kula hadasho oo ay leedahay Но я просто боюсь, что у вас эта история закончится как типа курортный роман закончился, вы уехали и все. xaaladan aniga waxaan ka baqayaa inay noqoto macnaha romancification oo kale inuu meeshan intuu yimaaday oo adiga iskala ka joogo kadib markuu baxano oo baay ku dhaho oo kale isagana wuxuu leeyahay idin sugaa dhameesta. I'll just wait over here. I'm worried about not getting answers from Caleb by the end of our trip. ayadana marka isla markii hadda shakiya galay waxay bilaadahay jawaabaha uu siinayay saaxiibadeeda markaan u fiirsho waxaan u maleynayaa Caleb su'aalaha aniga aan qabo inuusan ka jawaabi doonin oo ah macnaha mustaqbalkeena iyo dhanka aan ka dhiganayn isagana ninka de calaam su'aalaha saarna wuxuu leeyahay intaan ma sameynaysaa mise. My ex and I, we were still together at the time when things were getting serious with Caleb and I. okay qoftii ayadaaba sheeko kale la soo baxday ninkii oo maaragtay de saaxiibkeeda ahaa oo arrimaha modelka waxaas iskala shaqeynayeen oo haddana meeshan u soo raacay ayay maaragtay de meel sheex ku kulmeen oo de isagay ka shakaysanayeen xaaladiisu waa sida ay isla lahaayeen kadibna macnaha waxay tiri marka Khalib aan weydiiyo arrimaha mustaqbalkii waxyaabahaas waxaad moodaa inuu si uga cajiidayo way hagaagi doontaa waxba okay noqon doonaan oo kale uu leeyahay dhacda laakiin goorma marka isagiina ayadu ku soo cesho wuxuu yiri aniga su'aashaas ay weydiin goormada waxaad weydiisaa Caleb marka aydan waxay tiri Caleb aniga ma u maleynaysaa inaan xaq u leeyahay inaan su'aashaas weydiiso sababtoo anigaba uma aanan sheegin inaan ex-keygii aan wada noolnahay ama aan wada degannahay Russia macnaha waxay leedahay Caleb markii arintiisa aan isku soo dhawaanay inaan wada kulmayno iyo waxaas barnaamijkan iyo showgan iyo la sheegay kadib ninkii kalma ka soo qarisay isagana waxay ugu sheegtay inuu maaragtay yani qofba aysan lahayn sidii ayayna maaragtay markaasi ay ku soo baxday oo ku kulmeen marka waxay tiri hadii qof inaan la deganahay ama qof inaan leeyahay oo kale masaas ugu dhownahay hadii aan u sheegi lahaa Caleb waxaan ka xabsaday inuu macnaha oo iga laabto marka yeah igabe mashar yaraba How he's gonna react to hearing that I lied to him. So I'm just hope it's not gonna screw all the things up. marka ninkii haddana ku dhiirigelishay oo ku bushgareeyay wuxuu yiri يعني ilaa goorma marka sidaan ahaanaysa macnaha qaabkan ina wada hadaan ma rabtaa marka aydan waxay leedahay aniga geesinimadeeda mali waan cabsanayaa macnaha su'aalaha qaar oo mustaqbal ku saabsan Caleb ma weydiin karo anigoo sir markaasi ay qarsan tahay sidaan ka dareemay Caleb waa qof yani sida caadiga markaasi oo toosan runta u sheego anigana ma aragtay waxaan dareemayaa xumaato waxa uu sameeyay go'aanku gaari lahaana waan ka sii cabsanayaa hadii uu ogaado inaan been u sheegay laakiin si kasto ay tahayba waxay tiri yani arintaas waa inaan garbay ka dajiyay oo aan u sheegaa balse qaybteena intaas ku soo ekeenayna okay inta qaybta xigta ee tan aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabad